Kagla fardaha haddii laga gubo dame maado lama maado gaadhayo walaalow heestan waxaan ii dambaysee hanuun wali ku gadbix heestan uga taqaanidee aan ku waramo saaran tahay waxaan kaa rabaa nin yahow shanaawan qaba maxaad qabtaa martina guulaan wahay maraab martina guulaan khatar daahir waa dhegeysta Tiib xawla. allah yarxam mahado marka hore asxaabtan rabaa inaan salaamo adigana aad ila salaanto Waay. halkan waxaan ku wadaa barnaamijkii u dambeeyey muuqaalkii u dambeeyey ha dadkii ka soo jawaabay way oo meesha ay joogaan noo soo sheegay dadka way noo dambeyn doonaan xisaab cusubna waan wadaa xisaab baa iga horeysa adin kaaga horeysa haye waxaan akhrinayay commentary dadka soo hadlaya akhrinayay haye nin baa su'aal fiican oo aad u xiiso badan kusoo weydiiyey waa sax laakiin laakiin su'aasha markaan ka helay adiga markaan arkay su'aasha hoosuu noogu soo diray markaan su'aasha arkay Eh. waxaan soodaga maanta kugu jiraa sariiqda xabadaas waa in meesha public lagu weydiiyo ama igu ninka weydiin wuxuu yiri waxaan rabaa qofaan jeclaa inaan I love you ku iraahdo si aan xisaab ugu oran lahaa ii sheeg marka bartalasa mid si hal xabo si xisaab ugu oran kara I love you qofaan jecelahay ha sidee baan I love you uga oran karaa adoo xisaab isticmaalay adoo xisaab isticmaalaya oo tiro isticmaalaya ha oo ninkaas waa naxujeeyey waa sax waa rabaaba horta taasi dib ma ka sheega haye mise hadda jeceshana Maya, waxaan soo lahaa horta oo- easy saaxib yaal soo dhawaada waa waxba nala ma aha Haye. waxaas ilaahay baa noo fududeeyey horta dadkii ka soo jawaabay intii horta waa kuwan ha waxaan salaamaynaa Cabdinasiib Maxamed oo jooga gobolka Cabdinasiib. Bakool gaar ahaan degmada Ceelberde waxaan ku leenahay adiga iyo reer Ceelberde waad mahadsantihiin nasiib ha aad baad mahadsantihiin halkaas saahid yaasiin isagana waan salaamaynaa saahid isaga wuxuu joogaa gobolka togdheer magaalada burco aad baan kuu salaamay saahid Maxamed Shariif oo isagana Boorama jooga waan salaamaynaa iyo nin la yiraahdo mawliid macow nuur muqdisho jooga dhammaan horta asxaabta waan salaamayaa inta kasoo jawaabta waa muuqaalkii u dambeeyey ee aan soo gelinay adigana halkan ayaan sharaad kaaga samaynaynaa haddii aad magacaaga iyo halkaad joogtid aad ugu reebtid xagga hoose waad mahadsantahay waa tahay saaxib yaal waxaan rabaa marka mahad ninkii saaxiibkeena ee yiri xisaab ahaan jacayl waxaan qofka ugu sheegaa soo maahan ha iswareerin caalamku wuu fara badan yahay habka loo gudbiyo ama loo sheego tiro number marka la sheego qofka uu fahmayo in ay tahay inaad qofka u jeedid waan ku jecelahay xisaab ahaan waxaana lagu yiraahdaa waa numberka 520 eber 520 520 haddaad u qorto qofka macnaheedu waa af Chinese waa la fahmayaa waxaa laga wadaa waan ku jecelahay oka asme wadaade okay ya 520 qofku u qorto macnaheedu waan ku jecelahay 143 iyo waxaas uu lamid yahay waa Chinese ka gaar marka uu jawaabay saaxib waxaan rabaa xisaabta maanta waa maxay xisaabta maanta waa horta anigu numberka 9 horan u sheegay soo ma haye waxaan yiri 9 waa golden number waa golden number waa ka dambeeya sida biyahaas loo cabayo kale ayuu wuxuu u leeyahay wax kasta uu kugu imanaya haye maanta waxaan rabaa marka calculator-kaaga soo qaado ama qalinkaaga iyo warqadaada 9 oo hab cusuba oo tiro kasta ay soo bixi doonto 9 ayaan ku hayaa haddii aad nala joogtid weli waad mahadsan tahay fadlan sheer garee muuqaalkan saaxiibada nala sii wadaag magacaaga iyo halkaad joogtidna xagga hoose nagu reeb si aan kugu soo mahadcelino muuqaalka dambe waa tahay saaxiibayaal calculator-kaaga soo qabso ha igu halayn keligay calculator-ka soo qabso marka anigu waan ka jeestaa miyaa mise waa caadi may waxaan aniga inta cirro madaxii ku taale xisaabtan aniga halkaas ayaan ka wadayaa shaqada daawadayaashu way la arkayaan marka mobilkayga waxaan u maleynayaa ya axmed sadiiqna waa aduu kula shaqayn doonaa insha allah marka axmed sadiiq waxaan rajaynayaa saaxiib inaad calculator-ka dadku waa diyaar soo ma dadku way soo qaateen diyaar baa tahay saaxiib waxaad samaysaa numberkaa rabtid qabso tiradaa doontid qoro waxaad qoran kartaa 2 number 1 number 3 number 4 number 5 number 7 number 8 number 9 number adiga intaad awoodood hayn karto haddaad maskax ku hayn kartana qoro haddaadan ku hayn karina calculator-ka dad soo baxsato
كقرا حبا نمبر كذا نمبر بقرا هذا صح قرا ها ايه ها احمد صديق وتصدونا وان قرا نمبر كاس اتقرتي ها waxaad ku dhufataa 100 هي waa ku dhuftay waxaa rabtid qoro ku dhufo 100 waan ku dhuftay tira ku soo baxay soo maaha waay waxaad ka jartaa numberkii aad qabsatay ama lambaradii aad qabsatay hadday tiro badan ahaayeen iyo hadduu hal number ahaa ka jar waan ka jaray ma ka jartay waxaa kuu soo baxaysa mar walba tirada soo baxday waa 9 haddii la isku wada daro hadday 3 tiro tahay hadday 4 tahay hadday hal tiro tahay 9 bay noqon doontaa hadday 2 tiro tahayna 9 bay noqon doontaa hadday 3 tahay waa la isku darayaa tirada soo baxdan baa la isku darayaa tusaalahan waa tusi kartaa waxaad qabsatay axmedna wuu tusi karaa tusaale ahaan wuxuu ula jeedaa Saciid xisaabta marka la isku dardaro 9 baa ku soo baxaysa aniga oo kale waxa ay soo baxday 4950 halka 9 iska dhaaf marka hadii 4 iyo 5 marka la isku daro 9 weeyaan 9 u geer 18 hal loo geeyo 8 9 waa 9 mid kale hadda la ku tijaabin kartaa haye tus saddex number ba marka qabsanaynaa axmed ana tusaya okay waxa qabsay saddexdaas waxaan ku dhuftay 100 okay waxaan ka jaray tiradii aad qabsatay ka jar haye maxaa ku soo baxay waxa soo baxday 8 4 1 5 ibn okay 8 iyo hal isku dar waa 9 4 iyo 5 isku dar waa 9 9 u gel 18 macnaheedu hal loo geeyay 8 waa 9 9 waxaan isticmaal cimaamadaada ma haysan karo aniga 9 cimaamadiisa mar horaan tuuray aad baad u macsantahay waa tuuray marka saaxiib alaabta ku baashaala waxaan rabaa inaan in yar baraarujiyo mararka qaarkood xisaabtii u dambeysay oo kale oo aan soo geliyay oo ku lahaa xisaabta mid ka horeysay meel aan fadhiyay oo ku leeyahay tira qabso tirada isku wada dar tirada qabsatay u qayb tusaalahaan 3 tiro isku mid ah waxaad qabsataa 2 oo kale isku wada dar tirada ku soo baxday u qayb 2 waxa ku soo baxsan marba 37 dadka qaar si kale u fahmay marka macnaheedu waa 3 tiro isku mid ah ama hal ama 2 ama 3 ayaad qoranaysaa intaasaad isku daraysaa markaad isku darto ayaad u qaybinaysaa intan tiradan aad qabsatay saddexda oo jiifar ah mar walba waxa soo baxay 37 aan waan baraarujinay abad ma hasantii saaxiibyaal waa saaxiibkii Saciid Xaga maad qorantii Axmed Sidiiq oo idin leh ani xaggeyga way ka dhamaatay nabadee aad baad idin salaanay sagaalka gacanaan u taaga mahado heesta aad kugu dambaysay maxay heesta waa waramaya waad mahadsan tahay sidaas iyo nabadgelyo aad baad mahadsan cudurka ka gala fataha hadii aad doontid in uu ku sheego jacaylkaagu inay ku jeceshahay hadaad soo weydiisay xisaab ahaan buu ku sheegi doonaa xisaab marka si toddobaadka dambe uu kugu sheego in qofka aad xiriirka leedahay uu ku jecel yahay fadlan halka dambe ku weydiiyo hoos ku weydiiyo inta nagu ogaa inay soo gashay mahadsanidin nabadgelyo